رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. marka ugu horeysa waxaan diyaadaan ugu mahadnaqayaa anigoo ka wakiila wasiirka macdanta iyo tamarta iyo Ibrahim injineerka hay'adda Ganel sida aad iyo aad ka u ballaaran ee muddadii ay joogeen oo hawsha ula qabtay gudoomiyaha gobolku iyo guddigiisa nabadgelyadaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. halkan raggii halkan ka hadlay waa laga wada hadlay ahmiyadda arrintan ay noo leedahay. waxaa lagama maarmaanay inaynu xasuusanno marka ugu horeysa adduunyadan aynu ka mid nahay bini'aadmigu siduu maanta u kala qanisan yahay ama u kala xoog badan yahay ama u kala hormarsan yahay waxa kow ka ah sida dhaqaalahoodu u kala hormarsan yahay. dhaqaalaha siyaalaha uu hore ugu maraana waxa weeye waa tacabka ummad waliba ay dalkeeda geliso iyo ugu horeynta sida khayraadka dalkeeda ay ugala soo baxaan waxyaalaha khayraadka. haddaad iminka aragto dalalkan khaliijka ee reer Sacuudi Arabiya, Imaaraadka, Kuwait, Qatar giddigood markaad wada aragto xilliyada qaarkood ay xayay mas'acgalada lagu noolaa. khayraadkan badda ee shidaalku uu xoogga ku yahay iyo kabariga ayay dalalkan khaliijka horumarkooda iyo maxaan ku raahday qanimadoodu ay ku jiraan. hadeerto hawsar aqoonyahankii mujaahidkii baa halka sheegayo xoogaa warwarina dadkeenna waa kii sheegayo uu yidhi xoolaha iyo shidaalku siday u wada noolaanayaan. waa inaynu ogaanaa xoolaha maanta Sacuudi Arabiya jooga iyo xoolaha maanta Imaaraadka jooga innaka dalkeenna ma joogaan, manay lahayn xoolo intaa la leeg. shidaalka abuuray tiradan faraha badan ee xooluhu imika ay ku sii bateen. marka qaarkood ninka waxa la siinayaa booyadii gaarigii xamuulka ahaa xaajiyadii yareed teendadii yacniga shidaalka qaniimadiisa xoolaha ilaalinaysa environmentka ama dabeecadana ilaalinaysa. waxaynu u baahannahay maanta waa kii wasiirka golayaasha tiriyey dad konton ka badan baa halkan ka hadlay. maanta waxaynu ka hadlaynaa arrintii shidaalka. wasiirka macdanta iyo tamarta Cabdulaahi Faarax iyo wasiiradii kulista labada midna laguma hayo dal aan la aqoonsanayn oo aan dhaqaalo badanna lahayn dhaqaalana lahayn oo dowladaha ugu waaweyn inta ay u yimaadaan sharaa'igooda oo yiraahdaan waxaanu idinla gelaynaa heshiis siyaasadeed oo shidaalku waa material waa alaabo siyaasadeed oo dowladuhu ay ugu isticmaalaan waxaana yidhaahdaan istaraatiijiga si guud oo lagu ilaaliyo darahooda siyaasadeed. dowladaha tamarta leh ee xoogga leh weeye shidaalka. qaar badan baa hore loo calaamadiyey ceelkaasi cadow qudhun leeyahay. cadowga qudhun leeyahay waxa weeye waa nabadgelyo daro. shirkadda Ibrahim halkan uu madaxda ka yahay dhowr iyo toban sannadood buu ninkan inala joogaa Mike ee halkan fadhiya iyadoo aan waxba la bilaabin oon ceelkii la qodin oo aan maxaan ku idhaahday riigga imanin ayaa waxa ay maraysaa boqolaal milyan bay maraysaa. ceelkanina si qudhu ku qodmaya sida qudhu ku qodmaya waa nidaam dowladnimo oo ah wasiirka macdanta Somaliland. ninka labaad ee arrinkaas ay soo dhaaftay waa haddii madaxweynaha lala hadlo. marka waxaynu u baahannahay ceelku wuxuu halkan ku yimi wuxuu ku qodmayaa heshiiska uu ku yimi
والنظام دولدين أو طريق الدولدين صومري waxaynu maantana ku ilaalin karnaa ee ku hayn karnaa ee ku soo dhaweyn karnaa ee ku suuro gelin karnaa waxa weeye waa nidaamka dawladeed waa laba waa arrinta nabadgelyada qayb bay ka tahay koobay ka tahay waxa la doonayaa ariga laga qodayaa in ay nabadgelyadiisu ay sugan tahay waa suuragalta maanta burca ka taageeray inay saameyn ku yeelato very likely possible waayo sidaynu naqaano iyo sida dadka aynu la shaqaynayna ay u yaqaaneen labadu waa kala jaad